afartii gabdhood ee waxaystaba inay isu tagaan oo ayuuto ay galaan hal wiil oo qurux badan ha ku heshiiyaano oo ha guursadaan. sidaa waxaa yidhi daaciga iyo qaariga weyn ee Soomaaliyeed Sheekh Xasan Alwaajidi. hadalka markuu yidhi sheekha kadib waxaa dhacay mudaharaadkii ugu badnaa ee dumarka xaggood ka imaanaya. baraha bulshada waxaa iga hor imaanayay 100 boosti oo sidaa u qoran. waan baaray waxaana ogaaday xaqiiqda in uu sheekha sidaa yidhi. haddaba adigu fikirkaaga iyo ra'yigaaga maxay kula tahay? adigu miyuu ku saxan yahay hadalka Sheekh Xasan Alwaajidi mise kuma saxno? fikirka waxa weeye 4 gabdhood inay isu yimaadaan waxa weeye ayuuto galaan ama hagbad oo dhaqaale isku darsadaan hal wiil ku guursadaan. sidaa weeye waa tahay. haddaba adigu miyaad ku raacsan tahay mise kuma raacsanid? miyay kula saxan tahay mise kulama saxna? anigu fikir ahaantayda anigu uma arko fikir saxan. waxa u arkaa laba qoloba inay ku tahay gef ama qadaf. waa tan koowaade waxa u arkaa dumarka Soomaaliyeed hablaha Soomaaliyeed inay ku tahay qadaf. sababtuna waxay tahay dhaqanka Soomaaliga iyo diinteena suubanba gabdhaha ayaga ayaa la doontaa, ayaga ayaa loo golo fariistaa, ayaga ayaa waxa weeye la raadiyaa. gabdhuhu waxay leeyihiin qiimo oo waaluul oo ayaga ayaa la raadsadaa, loo gogol fariistaa, weligeeda waxa weeye laga bariyaa, laga tutugaa, la weydiistaa. gabadhii sidaa ahayd in la yidhaahdo adiga waxa weeye nin doono oo dhaqaalaha bixi waxa u arkaa inaysan ahayn mid saxan. hal gabar haba joogtee in la yidhaahdo 4 isugu taga oo dhaqaale isku darsada oo ayuuto bixiya oo nin ku raadsada uma arka anigu fikir saxan. inkastoo wadaadka waxa uu daliishanaya ay tahay in culeysyo fara badan dumarka xaggooda uu ka yimid oo maalmahan dambe ay jiraan gabdho badan oo dhaqankii iyo diintii iyo sharaftii dooriyey oo waxa weeye baraha bulshada iyo meelaha magaranaysa dhaqan xumo ku muujiya. inkastoo ay jiraan haddana si kastaba ha ahaatee dumarku dhaqanka ay leedahay Soomaalidu waxa weeye sharaf bay leeyihiin. dhaqanka Soomaaliga hore markii lagu laabtana waxaa jiray hal qaab oo gabdhuhu ay ragga iyaga ku raadsan jireen waxaana la yiraahdaa heerin. laakiin dumarka heerinka ahi ayagu dhaqaale ma bixin jirin. 4 ama 2 ama 3na hal nin iskulma guursan jirin ee gabadha waxa weeye ninkii qaata ayay guursan jirtay. dhaqan aad u yar ayuu ahaa oo Soomaalida inteeda badan xitaa ma uusan soo wada gaarin oo heerin baa la oran jiray. marka in la yiraahdo dumarkii inaad heerin wada noqotaan oo waxa weeye aad israacdaan deetana hagbadii ayuuto inaad gashaan nin ku raadsada taa waxay ila tahay haddii qaabkaa la sameeyo sidaa wax u dhacaan in qiimaha iyo sharafta iyo qadarinta gabadhu ay yaraanayso. sidaa darteed waxa u arkaa qodobka inay tahay qodob aan saxnayn. qodobka labaad waxa u arkaa in ay gef ku tahay ragga Soomaaliyeed waayo wiilku isaga ayaa wax doonta, isaga ayaa gabadha u gogol fariista, isaga ayaa sooriyada bixiya, isaga ayaa wax raadsada. in isaga la soo raadsada la yiraahdo halka waxa ka baxaya mas'uuliyadii iyo ragga inuu ahaa الرجال قوامون على النساء ayaa meesha ka baxaysa. waayo gabadha haday iyada wax soo doorata iyada wax guursato oo ay dhaqaale bixiso ayada hadee guriga mas'uulka. tan kale imaanaysa waxay tahay ninka marka hadii la yiraahdo isaga la soo doonto oo waxa weeye Sooria iyo gabaati ee dhaqaalaha laga bixiyo hadii la yiraahdo waxa meesha ka baxayso marashadii masruufka ninkan lagu lahaa mas'uuliyadda reerkii ka saarnayd ayaa meesha ka baxayso. waayo ninkii isaga la soo doontay ee gabaatiga laga bixiyay ee waxa weeye yaradka laga bixiyay ee dhaqaalaha isaga lagu bixiyay in marasho iyo masruuf lagu yeesho suurtagal ma noqonayso. qodobkaana waxa u arkaa in aysan sax ahayn, in ay qalaf ku tahay ragga Soomaaliyeed. anoo sheekha durahayn haddana waxa u arkaa qodobkaasi hadalkaasi ma ahayn mid ku haboon in uu qof nooca ah oo qayimka leh oo ma garanaysa bulshada dhexdeeda magaca iyo sharafta iyo karaamada kale in uu yiraahdo ma ahayn. inkastoo hadee sheekhu waxyaalaha uu isla fiiriyay iyo culeysyada jira iyo dhaqanka laga tagaya iyo hablaha qaar u dhaqmayaan uu eegayay haddana waxa weeye hadalkani ilama aha ra'yi ahaantayda mid saxan. dadka ka soo horjeeda ee oranaya qodobkani ma ahan mid saxana waxa weeye dadkaana way ila saxan yihiin. waxaana sidoo kale arkayay dad badan oo waxa weeye sheekha u gafaya ama caayaya ama waxa weeye hadallo xun ku oranaya maya taa xaasha lillaah taa qalad weeye. waa ibni aadam waxbuu si waarki karaya. waxaa laga yaabaa sidaan anigu hadda u falanqaynayo oo ay ila tahay si ka duwan inay isaga u muuqato. waayo isagu inta aan garanayo hadda aan kuu sheegayaba waa uu og yahay. inta aan garanaya ee aan kuu sheegayaba
waa uu og yahay sidoo kale wuxuu garanayaa diintii buu garanayaa oo waxaa weeye sunnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa in ragga isaga uu wax raadsado rag badan oo asxaaba xilligii nabigii oona waxba haysan raggaa nabiga calayhi salatu wuxuu dhihi jiray wax unkeen adiga wax un adiga raadi ma uusan oran jirin gabadha intaa ha keenta adiguna intaa keen ee isku darsado sidoo kale haddii ninku uu wax waayo ma uusan oran jirin gabadha wax ha keento ma uusan oran jirin xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa yowmuna hada waxay ahayd ninka inuu wax doonta gabadha waxaa weye isaga gabaati ka bixiyo u gogol fariisto reerkooda weydiisto halkaa ma garanaysaa qoys wanaagsan oo qurux badan uu waxaa weye ka asaasmo ninkuna isaga uu reerka mas-uul ka noqdo oo marasho iyo masruuf isaga lagu yeesho waa tahay waxaa jiray marka wax xilligii horena dhici jiray ilaa haatanna dhacda mararka qaar in gabar wax haysato oo soo shaqaysatay ama tusaale ilaa xilligaa hadda la jooga gabar waxaa weye wadamada qurbaha ka timi wiil africa camal jooga waxba haysan in waxaa weye dhaqaalihi iyada ay bixiso waa suurtagal wax dhaca weeya oo habeenii maalin dhaco laakiin in la yidhaha 4 gabdhood ha isu yimaadeena midba mid ha raadiso ayuuta ha la galo jeejana hal nin ha la raadiyo maadaama raggii u yaraaday waxaa weeye qodob saxan ilmahan tan kale ninka raggaahi 4 baa loo baneeyey 4taa marka ninka raggaa loo baneeyey shuruudaha loogu baneeyey waxay ka mid tahay inuu xaq soori karo in 4tooda waxaa weeye uu kafaalo qaadi karo uu biilan karo shuruudihii bay ka mid tahay marka waxaa weeye raggu inuu 4taba kafaalo qaadi karo biilan karo masruufan karo shuruudihii bay ka mid tahay isagoo waxba haysan haddii 4ta ayuuto in iyaga galaan dhaqaalo keenaan ay waxaa weeye isaga ku aroosaan waxaa weye guri loogu dhigo marashadii iyo masruufkii iyo mas-uuliyaddii reerka iyo madaxtinimada reerka yaa markaa yaa lagu leeyahay ma ninkii baa lagu leeyahay mise dumarkii baa lagu leeyahay taana mid meesha ku jirta wey si kastaba ahaatee waxa qurux badan bulshadeenna in ay noqoto bulsho wanaagsan bulsho nadiif ah waxyaabahan baraha bulshada ee dadka waalayna aysan jara naga tuurin aad baa umahadsan tihiin waxaan leeyahay guulaysta 4tii gabdhood ee wax haystaba inay isu tegaan oo ayuuto ay galaan hal wiil oo qurux badan ha ku heshiiyaano oo ha guursadaan sidaa waxaa yidhi daaciga iyo qaariga weyn ee Soomaaliyeed Sheekh Xasan Alwaajidi hadalka markuu yiri sheekha kadib waxa dhacay mudaharaadkii ugu badnaa ee dumarka xaggood ka imaanaya baraha bulshada waxa kaaga hor imaanaya 100 boosti oo sidaa ah baraha bulshada waxa iga hor imaanayay 100 boosti oo sidaa u qoran waan baaray waxaana ogaaday xaqiiqda in uu sheekha sidaa yiri haddaba adigu fikirkaaga iyo ra'yigaaga maxay kula tahay adigu miyuu ku saxan yahay hadalka Sheekh Xasan Alwaajidi mise kuma saxno fikirka waxa weeye 4tii gabdhoodba waxa weeye inay isu yimaadaan ee waxa weeye meel ku wada shiraan gabadhba gabar ay soo raadiso dhaqaale ayuuta isku darsadaan 4 gabdhood inay isu yimaadaan waxa weeye ayuuta galaan ama hagbad oo dhaqaale isku darsadaan hal wiil ku guursadaan sidaa weeye waa tahay haddaba adigu miyaad ku